السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنت اللي بنتلاقينا حريص إنت حنوسني العافية وحمراد المناطق الخير العسية. آمين ما أنت على وحكوا بينك كوي تبنكي بشكل وتكون أفرم كل أفرد زيت كوبيجان لو أعطني تضربي بشي الحاد الله أكون لا تلح وردك دق نسوي جرا أي شيء ده maraykanka oo bartilmaamsaday meelo muhiim ah oo ku dhow marinka Hormuz ee ciidamada kacaanka oo u jawaabay warkaas aan degdeg ah in la wadaago ku soo dhawaada soo faahfaahsan. Iiraan iyo Lubnaan toos ah maraykanka oo weeraray bartilmaameedka Iiraan ilaalada kacaanka u jawaabay maalintii tobanaad ka dhameysay saxiixa heshiis is-afgarad ah oo u dhexeeya Washington iyo Tehran iyo 120 maalmood tan iyo markii uu dagaalka bilowday, waxaana dhacay horumaro waaweyn oo la xiriira xiisadda Iiraan iyo Lubnaan. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa, maraykanka ayaa sheegay inuu duqeymo ka fuliyey bartilmaameedyo militari oo ku yaala jasiiradda Sirika oo u dhow marinka Hormuz, isagoo sheegay inay jawaab u yihiin weerar ay ilaalada kacaanka Iiraan ku qaaday markab ganacsi Arbacadii. Weerarada ayaa lagu beegsaday goobta lagu kaydiyo gantaalada, bakhaarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. weerarada marka ay meelaha bartilmaamsan maraykanka waxaa ka mid ah goobaha lagu kaydiyo gantaalada, bakhaarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, xarumo rayid ah oo xeebaha ku yaalo. ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay iska caabinayaan weerar ayna duqeyntu ku dhacday laba munaarad oo kormeeraha qaxinta badmaaxayaasha. Ururka caalamiga ee badmaaxayaasha IMO ayaa sheegay inuu dad gurayaan ku dhowaad 2,500 badmaax ah oo ku xayirnaan marinka Hormuz ka hor inta aan si ku meel gaar ah loo hakinin. howlgalka wuxuu taabtay ugu yaraan 115 markab. IMO waxay hadallo la leedahay Iiraan, Cumaan iyo Maraykanka si loo helo damaanad amni oo lagu sii wado dadgureynta. Weli badmaaxyaal ayaa meesha ku sugan. Heshiiska Lubnaan iyo Israa'iil, wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay inay la shaqeyn doonto dhinacyada si loo hirgeliyo heshiiska qaab dhismeedka ee u dhexeeya Lubnaan iyo Israa'iil. Pentagon-ka ayaa diyaar u ah inuu siiyo ciidan Lubnaan oo ka badan $30 milyan sidoo kale Maraykanka wuxuu ballan qaaday $100 milyan oo gargaar bani'aadamnimo iyadoo la shaqeynaya qaar ka mid ah qaramada midoobay. Bayaanka ayaa sheegaya in heshiisku yahay tallaabo lagu celinayo madax-bannaanida Lubnaan laguna doonayo in hubka laga dhigo ururka Xisbullah. May suurtagal doontaa ma garan doono. hadalka Marco Rubio, wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Marco Rubio ayaa sheegay Washington waxay ku faantaa inay qayb ka tahay heshiiska taariikhiga ee u dhexeeya Lubnaan iyo Israa'iil. Inkastoo heshiisku la gaaray, haddana shaqo badan ayaa weli harsan. waxaa la qaadayaa tallaabooyin dhab ah oo lagu gaarayo nabadda barwaaqo iyo wada noolaansho. dibadbaxyo ka dhacay Beirut, taageerayaasha Xisbullah ayaa habeenkii Jimcaha ka dibadbaxay
wadooyinka Beirut iyagoo ka soo horjeedo heshiiska lagu dhawaaqay ee u dhexeeya Lubnaan iyo Beirut, Lubnaan iyo Israa'iil. Dibadbaxayaasha ayaa waxaa watay mootooyin oo maraya wadooyinka muhiimka ah oo magaalada waxayna meelaha qaar ku xireen wadooyinka iyagoo gubaya taayaro. Waxaa rabay marka walaalayaal warka degdeg inaan la soo wadaago wixii war ku saabsan warkaan oo warkeeni dambe hadduu Ilaah yiraahdo. Like iyo share wax markaa dhibayso iska taabanaysaa bes. Waan idin salaama, waan idin mahadcelinayaa. maalintiina ay wanaagsanaato. waan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.